Lesson 3. Days, months and seasons. casharkeena saddexaad wuxuu ku saabsan yahay maalmaha, bilaha iyo waqtiyada kala duwan ee sanadka. waayahay waxaynu ugu horeysiinaynaa bilaha. bisha ugu horeysa waxa weeyaan January. bisha labaad waa February. bisha saddexaad March. bisha afraad April. bisha shanaad May. bisha lixaad June. bisha toddobaad July. bisha sideedaad August. bisha sagaalaad September. bisha tobnaad October. bisha 11aad November. iyo bisha ugu dambeysa ee ah bisha 12aad. December. waayahay waxay noogu xiga maalmaha isbuuca. maalinta ugu horeysa wiiga waxaa la yidhaahdaa Monday oo af Soomaaliga ku noqonaysa Isniin. waxaa ku xigta Tuesday oo noqonaysa iyaduna Talaado ama Salaasa. Wednesday oo noqonaysa Arbaca. Thursday waa Khamiis. Friday waa Jimce. Saturday waa Sabti. Sunday waa Axad. siyaabihii loo soo gaabinayna way ku aqoran yihiin. haddii aynu saddexda ugu horeyno eegno waxa weeyaan Monday oo la yidhaha Mon. Tuesday oo loo soo gaabiyo Tues. Wednesday oo loo soo gaabiyo Wend. iyo sidoo kale ilaa iyo Axadda. Exercise 1 waxa weeyaan 10 su-aalood oo la rabo ardaygu inuu ka jawaabo. 5 ugu horeysa ayaynu akhriyeynaa. su-aasha ugu horeysa waxay ku leedahay what day is before Saturday? maalintee ka horeysa maalinta Saturdayda ama Sabtida? What day is after Wednesday? su-aasha saddexaad waxa weeyaan what day is after Sunday? su-aasha afraad waxa weeyaan what day is before Tuesday? su-aasha shanaad waxa weeyaan what day is 2 days after Thursday? waayahay iminkan waxaynu eegi doonaa seasons. Seasons waxa weeyaan waqtiyada sanadka uu qaybsamo. waxaynu ugu horeysiinaynaa summer oo ah waqtiga kulaylaha.
waxaa ku xigta autumn amase dadka qaar waxay u yaqaanaan fall. waxaa ku xigta winter oo ah waqtiga qaboobaha iyo spring. So the seasons of the year are spring, summer, autumn or fall, and winter. cashirkeenii saddexaad xaggaas ayuu inoogu eegyahay. Lesson 3 Days, Months and Seasons.